السلام عليكم. maanta waxaynu ka hadli doonaa basaasad ama gabadh sirdoon ah dadignimadeedana waxa ay ku awooday in ay ciidan badan ay ku khiyaanto si aynu u fahanno qisada basaasada khatarta ah waxa laga maarmaan ah in aynu marka hore ka waranno sheeko xariireed laga soo wariyay yahuudigii Ciraaqiga ahaa ee magaciisa la oran jiray Aysara Naajis al-Kha. Aysara waxa uu ku dhashay magaalada Mosul ee dhinaca waqooyiga ka taal dalka Ciraaq. Markii uu dhashay hilaadu waxay ahayd Janaayo 1927 waqtigaas hore noloshiisa waxa iska ahayd mid iska caadi ah sida dhalinyarada Ciraaq oo kale. Waxa uu qaatay shahaadada heerka dhexe wuxuu shaqaale dhinaca ilaalinta kaydka ah ka noqday wasaaradda ganacsiga Baghdad. Wuxuu bartay macallimad yahuudiyad ah oo magaceeda la oran jiray Malaad oo joogi jirtay macbadka Yahuuda. Wuu jeclaaday waxayna isguursadeen sanadii 1952. Gabadhii waxay si kedis ah u dareentay xumad daran waxa ku dhacday oo burburiyay xanuunka la yiraahdo typhoidka. guurkoodii hal sano kadib way geeriyootay gabartii. markii ay gabadhii geeriyootay Aysar kelidii ayuu iska noolaa. waxa noloshiisa ka buuxay murugo wuxuuna ku noolaa oo markaas xasuusan jiray oo isku mashquulin jiray xasuusihii ay xaaskiisii hore soo wada qaateen. Aysara waxa uu aaminsanaa ballanteediina fuliyay xaaskiisa isjeclaayeen ee geeriyootay ilaa ugu dambeyn uu bartay garmadoobe yahuudi ah oo da'diisu u dhowdahay 60 sano jir. waxa uu shaqayn jiray taajir weyn wuxuuna uga shaqayn jiray xaafada kala duwan ee Baghdad. waxa uu iibin jiray alaabihiisa kala duwan. ninkii garmadoobaha ahaa aaminaad aad u badan ayuu siiyay Aysara. ninka taajirka xaaladiisa waa dhexdhexaad magaciisa waxa la yiraahdaa Bushaad. wuxuu waqtiyada kamid ah la shaqayn jiray shirkad basaasnimada ka shaqeysa wuxuuna dhowr mar isku keenay dhowr kooxood oo kamid ah kooxaha sirdoonka ee ka shaqeeya wanaajinta Israa'iil. ujeedada ugu weyn ee xogaha loo ururinayay fuqarada shacabka Yahuudda ee kala duwan waxay ahayd in la tacaalo duruufahooda nololeed, inuu diyaariyo dadka, inuu kor u qaado aqoontooda ganacsigooda iyo inuu ogaado aragtidooda ay ka qabaan dhinaca arrinta tahriibka. ninkani booqashada wuxuu ku badin jiray dadka Yahuudda ah si uu ugu qoro qoraalada. waxa uu ku noqon jiray qabriyada si uu xog uga helo afka dadka halkaas ku jira, isagoo aan ogeyn in inantiisu kaliya ay leedahay firfircoonidiisa basaasadeed iyo isagoo isku dayaya inuu u yeedho si uu la shaqayso. markii Bushaa uu yeedhay saaxiibkiisii cusbaa ee Aysara si uu ugu soo booqdo gurigiisa waxay ishiisu ku dhacday inantiisii. halkaas ayna qisadoodu ka bilaabantay. Aysara waxa uu la dhacay quruxdii gabadha oo magaceeda la oran jiray Rawaan. waa gabadha qisadeenu ku socotay isla markiiba gashaantidaas oo arkay waxa uu maleeyay in ay tahay mid kamid ah horlacaynta jannada. markii uu awoodi waayay inuu qarsado jacaylka uu qabo ugu dambeyn waxa uu ku dhiiraday inuu u sheegto. gabadhii waxa uu sheegtay inayna go'aankeeda aanu gacanteeda ku jirin se go'aankeeda uu gacanta ku hayo aabaheed una go'aamiyo. halkaas fursad qaali ah ayaa uga banaanaatay garmadoobihii yahuudiga ahaa si uu Aysara uga faa'iideysto una ka yeelo una u jiheeyo si alle sidii uu doono si uu shabaqiisa u soo geliyo Bushaa. waxa uu Aysara ka dalbaday meher aad u badan oo inantiisa hanti badan ayaa laga bixiyay. aabaheedna xoolo badan baa la siiyay. odayga waa Bushaaye waxa uu ogaa sida ninkan Aysara inantiisa u jeclaa iyo caashaqan xaddaafka ah ee inantiisa uu qabo. gorgortanka badan kadib Bushaa wuu ogolaaday inuu inantiisa siiyo una u dhiso Aysara isaga oo sharti uga dhigay inuu ka caawiyo Aysara cidda uu garanayo ee yahuudi ah in ay u hijroodaan ilaa Israa'iil. odaygan qorshaha lahi wuxuu isku dayay inuu muddeeyo oo ballan u qabto maalintii aroosku dhici lahaa iyada oo waqtigaas ay ku xidhan tahay maalinta uu Aysara u diyaar garoobo inuu galo majaalkan. arrintii Aysara kumay adkaan inuu aqbalo. gabadhii ayuu aad u sii jeclaaday. marka isaga loo eego ka yahuudi ahaan dembi kuma laha inuu yahuudda kale ee asaagii ah ku qanciyo inay hijroodaan. fuqarada uu rabo inuu la hadlo waxa ay warwar badan ka qabeen xaaladooda nololeed ee sii xumaanaysa. tahriibka waxay u maleynayeen inay tahay dariiq iyo farash ay dhibaatada ka bixi karaan. haddaba iyagu maxay khasaarayaan? sidaas ayuu Bushaa ku awooday inuu u ugaarsado shaqaalaha cusub ee sirdoonka Mossad isaga oo u shaqaynaya si qanaaco leh oo bilaash ah. waxa uu ku kalsoonaa sida daacadda ah ee u shaqeeyo. haddaba markii uu Aysara u diyaar garoobay shaqada afkambi aad u weyn ayaa ka dhacay dhulka Carabta. waa dagaalkii u dhaxeeyay wadamada Carabta iyo Israa'iil sanadkii 1956 dalka Masar waxa ka dhacay dagaalkii la oran jiray dhibaatooyinkii saddex geesoodka ahaa. Israa'iil ayaa qabsatay qayb kamid ah jasiiradda Sinai.
markii Mareykanka oo arrinta soo galayna waa ay ka baxday qabsashadii ama la wareegidii Sinai arrin cajiib ah ama u qaadan waaha ay ku noqotay Yahuudii Carabta ahayd aad ay uga shakiyeen awoodda ciidamada Israa'iil ku wajaheen ama ku qaabileen ciidamada Carabta waxa ay dib uga laabteen ama muraajaceeyeen fikradii ahayd kaajirida ama tahriibka dhibaatooyinka ayaa dhacay Sinai-na waa la qabsaday dabadeedna waa laga saaray Yahuudu intooda badan waxa ay aaminsanaayeen ama ay aamineen in waxa dhacay ay yihiin arrimo siyaasadeed iyo in Carabtiina awood ciidan oo kadiisa ah u adeegsatay Israa'iil shaki la'aana way diyaar garoobayeen waxayna kaliya raadinayeen fursad munaasib ah oo ay Israa'iil ku garaacaan marka ay dhibaatada arliga oo dhan ka dhacdana ay ku xukumaan aragtidani waa ay faaftay waxayna ku faaftay Yahuudii Carabta ahayd ee daafaha caalamka kala joogay waxa ay ugu faaftay sida dabka ololka ugu faafo meelaha ku hareeraysan oo kale arrintu sida kale ayay isku bedeshay oo kalsoonidii lagu qabay way isbedeshay qabsashadii Israa'iil waxa isku bedeshay arrin ay Israa'iil siyaasad ahaan iyo military ahaanba dib uga goratay Yahuudda intoodii badnayd taladoodii ay ku laabteen waxa aad loo khafiifiyay isku dayo badan oo saameynayay Yahuudda kuna dhiirigelinayay inay hijroodaan sidaas daraadeed muqaabaraadkii Israa'iil waxa ay u qasdiyeen inay faafiyaan warkii Abraham waxa la bilaabay hawlgal geesinimo waxa ahaa hawlgalkii ugu dhiirinimada badnaa ee lagu tahriibiyo 65 qof oo Yahuud ah oo laga dhoofiyay dekada Saciid waa Port Saciid intii lagu jiray dhibaatooyinkii saddex geesoodka ahaa ujeedaduna waxay ahayd in la faafiyo wararka raadiyowga marka loo fiiriyo maalmihii lagu soo duulay muqaabaraadka taasi waxay ilaalisay dilkii Yahuudii Ciraaqiga ah shaqaalihii sirdoonka Mossad ayaa faafiyay in hawlgalkaasi ahaa mid qorshaysan oo lagu argagax gelinayay qalbiga Yahuudda waa isla iyagii Bush wuxuu aad uga xanaaqay dhacdadii lagu dilay ninkii Yahuudiga ahaa isagoo oo door bidaya Caysara waxa uu isku dayay inuu xaaladiisa nafsadeed kiciyo si uu xamaasadiisa u baraarujiyo Caysara ayaa isku dayay inuu xukumo Yahuudinimadiisa inta badan shaqadiisu waa uu ka run sheegay bilayar kadib wuxuu hayay waraaqo badan oo ku qoran yihiin 12 qoys oo Yahuud ah oo ku qanciyay inay u tahriibaan ilaa Iiraan oo Israa'iilna ka mid tahay dabcan safarka tahriibka waxa laga bilaabay waqooyi bari shaqaalaha kaalinta weyn ka qaatay sida fiicanna uga shaqeeyay waxa kamid ahaa Kurdiyiinta dadka tahriibaya ay hagi jireen oo buuraha meelaha godan iyo meelaha aan isku sinayn ay dhaafin jireen waxayna ka caawin jireen in ay ka talaabiyaan xuduudda Iiraan waxa ay la heshiiyeen ciidamada ilaaliya xuduudda iyo sargaalada sirdoonka Mossad sidaas ay shaqadii ku bilaabay Caysara gudihiisa waxa ka muuqatay geesinimo badan aadna waa ugu faani jiray awoodihiisa badan ee uu ka helay Israa'iil mid aad u fudud ayay u noqotay ciyaartii adkayd waqti yar kadib waxa dhintay Bush sirdoonkii Mossad ayaa isku dayay inay la xiriiraan Caysara si ay u dhammaystiranto arrintii muhiimka ahayd ee Bush la bilaabeen Caysara ayaa daa ka qaaday in Rawaan waa xaaskiisii ay wax kasta ogeyd qaar ka mid ah sirdoonka Mossad ee Ciraaq ku sugan ayaa Caysara ka dalbaday inay siiyaan tababar una sii carbiyaan faniyada kala duwan ee basaasnimada markii uu sii dhex galay wax badan ayuu sii ogaaday ilaa ugu dambeyn uu noqday basaas tababaran oo wax badan ka garanaya xeerarka kala duwan ee caalamka basaasnimada Caysara waxa uu dadaal aad u badan geliyay in si uu u tahriibiyo Yahuudda Ciraaq ku sugan muddo 2 sano gudahood ah waxa uu tahriibiyay in ka badan 400 oo qof waxa uu ka talaabiyay webiga Shaata al-Arabi shaqadaas uu hayay wuxuu ku dhaxlay astaamo shaydaameed oo markii dambe muhiimadooda uu guul badan ka helay inkastoo ummadu isku xirantay Caysara waxa uu ka mid noqday basaasiinta ugu xirfadda badan ee ka tirsan shaqaalaha sirdoonka Mossad ee Baghdad markii Caysara uu shaqadiisa ku guuleystay ee uu shaqadiisa horumariyay Rawaan waxa ay ku mashquulsanayd arrin uu ka fashiliyay intii ay umusha ahayd Rawaan waxa ay aad u jeclayd ilmo yar oo ay markaas u dhashay oo nolosheeda nuuriyay inkastoo ay jirtay in ninkeedu uu aamusay oo aanu arrinta wax muhiim ah siinayn Rawaan waxa ay u la furnaatay dhaqaatiirta nafteeda ayay kula sheekaysatay inay ninkeeda u sheegto sida ay u jeceshahay inay isaga ula tahriibto xagga iyo Israa'iil waxa ay naxan ku maqashay inay halkaas goob ay isku daaweyso ka heli karto waxayna rabtaa inay halkaas isku daweyn ay ka doonato
dabcan way ku dhiiratay waxayna ninkii u bandhigtay fikrad. Markii hore wuu diiday oo amar diidmo ah ayay kala hor yimiday, wuxuuna ka dalbaday inay ka warsugaan ilaa inta uu ogolaanayo inay tahriibaan ama safraan. Wuxuu raadsaday fursad, wuxuuna la hadlay gudoomiyihii isku xidhka ee uu kala hadli jiray ballamaha iyo qorshayaasha dadka. ninkay ayuu ka dalbaday inuu arinta u bandhigo madaxdiisa sirdoonka Mossad. dabcan wax fudud ma yahayn in Mossad ay ku xadgudubto Caysara kadib markii uu shaqadiisa si fiican u guto oo uu muujiyay xirfad aad u weyn. howlgallada ah in la cadaadiyo shaqaaluhu waxay ku xidhan yihiin xisaabaad dabraya oo ay ugu mudan tahay kalsoonida uu shaqaaluhu naftiisa ku qabo. ilaa xad markasta oo qalad ku dhaco waxa waajib ah in la khashifo. natiijada kalsoonida weyni waxa ay ku xidhan tahay awoodda qofka iyo inay hoos u dhigaan awoodda ragga ammaanka isaga oo goosanaya midhaha uu horey u beertay. Caysara intaas kadib ma gaadhin ilaa heer uu aad uga cabsoodo. waxaa laga maarmaan ahayd in uu wax sii dheefsado inta aan la caydhin ka hor ama inta loo ogolaanayo in uu baxo ama uu dhoofo. falcelin ayuu kala kulmay sidii uu filayay. isku dhexyaaca ayaa la darsay markii uu ogaaday in darajo ciidan laga siiyay ciidamada Israa'iil. isaga iyo qoyskiisaba waxaa loo ballan qaaday inuu ku noolaado nolol milgale marka uu muhiimadiisa dhammaysto. ilaa Israa'iil uu tago wuxuu door weyn oo cusub ka qaatay inuu barto ama ogaado habka loo isticmaalo raadaarka. waa qalabka lagula socdo dhaqdhaqaaqa qofka. kadib markii loo dhiibay aalad raadaar ah oo horumarsan, suurtagal uma ahayn in uu la socdo qalabka dhaqdhaqaaqa lagula socdo dadkaasi oo aan asal ahaan joogin ama ku sugnayn Ciraaq. sidaas daraadeed Caysara waxa uu ku kalsoonaaday ahmiyadda doorkiisa ah shaqaynta masaalixda ama danooyinka Israa'iil ee Ciraaq. waxa uu aad xoog u saaray waxyaabaha muhiimka ah ee basaasnimada la xiriira si uu u urursado go'aanada muhiimka ah ee uu ka helayo shaqadiisa wasaaradda ganacsiga. wuxuu ku guuleystay inuu koriyo ama kordhiyo xiriirada uu la leeyahay mas'uuliyiinta qaarkood. waxauna ka dalbaday inay u ogolaadaan inay shaqaaleysiiyaan ciddii u timaada, balse umay ogolaan. waxa uu aad ugu wareeray wakiilada ama maamulka Mossad. xirfadiisa ahayd faafinta warlayliyaha waa qalabka lagula socdo dhaqdhaqaaqa qofka. waxa uu inta badan ku wareeri jiray inuu dhex galo kumanaan bulsho ah oo uu u diro go'aano heer sare ah oo la xiriira dhaqaalaha iyo beeraha. xogaha uu dirayo Tel Aviv waxa uu ka helay hanti maaliyadeed oo aad u badan oo jeebkiisa ayaa koosmay. waxa uuna isbedelay geedi socodkiisa nololeed iyo kii hantiyeedba. halkaas markay wax marayaan waxaa yimid doorkii Rawaan waxaana bilaabantay sheekadii basaasnimada.